ciidamada sida gaarka oo tababaranaya Haramcad ee dowladda federaalka Soomaaliya qaybtooda ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo amniga waxa ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Jowhar. Howlgalkan waxa hogaaminayay taliyaha ciidamada Haramcad Xabiib Salaad Xureyste waxa uu bulshada uu ka wareysanayay xaaladda amni ee magaalada Jowhar. xaafadana wax culeys ka jiraan xaafadeena odayaasha magaalada deegaanka ayaga xoogay dadka dhalinyarada ayaga awaanayaan waxaad culeys oo dareemeyn oo dhibaato inaka ma jiraan insha Allah taala abrin magaalada aad u fiican shacabka haddii ay sabab kula shaqeynayeen ama aysan raalli ka ahayn shaqada ay hayaan ciidamada qaranka wada shaqeynu ma jiriis because haddii hawsha aad raadinaysay ay shacabku ay u gadaal mariyaan shaqadu waa yaraanaysaa alxamdulillah waa nala shaqeeyaan 100% waa ugu mahad celinaynaa si ay nala shaqeeyaan sida wanaagsan haddii ay wax dhibaato arkaan ama ay caqabad arkaan nooc kasta oo tahay waa nala soo xiriiraan waana rajaynaa annagana waxa waaye markasta nala soo xiriiraan iyo hadda ka bacdi si degdeg ah ugu jawaabno ficiladooda iyo waxay nala soo wadaagaan intaba horta marka u horeeyda ma ahan howlgalka marka ugu horeysan sameeyno annaga war kasta howlgalkan waa sameeynaa adduunku baa caawina la soo kulmay laakiin shaqadan waxa waaye shaqa markasta aan haynay waana waajibaadna saaran waxa waaye ama aan ka daalno ama aan ka nasono midna maahan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan annaga waxa waaye waxaan diyaar u nahay inaan u shaqeyno qaranka iyo dawladda intaba hadii waxa waaye waa dareemaysaa adiga laftirkaada Hirshabelle hadii aad joogtay waqtiyadii aan howlgallada bilaabeynay iyo maanta waxa waaye marxaladda ay kala joogto waa dareemi kartaa marka waxaan leenahay nabad ku seexda nabad ku soo kaca insha Allah hadii Ilaahay idmo howlgalkan waxa loo galahay in lagu xaqiijiyo amniga lagu baaro nabadiidka laga hortago dhibaatooyinka dadka waxyeeleeya ama dhibaateeya shacabka nooc kasta oo yihiin sidoo kale dadka maandooriyaasha isticmaala oo qamrooyinka iyo waxa waaye daroogada xashiishka nooca loo yaqaan iyo waxyaabahaas isticmaala oo ayagoo maankooda uu maqan yahay dadka waxyeeleeya haday toorey tahay haday qori tahay dhibaato kasta marka nabad diidku nooc kasta oo noqdo ama qof waxyeeleeyo ama mid amniga qatar ku ah noqdo waxa waaye qaabkaas ayaa howlgalka nagu markasta ku saabsan yahay waana waxa aanu abuurana sidoo kale taliya Xabiib ayaa bulshada ku nool magaalada Jowhar ka codsaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga ee magaalada Jowhar waxaan u dirayaa shacabka ciidamadan waa ciidamadiinii har iyo habeen waxay diyaar u yihiin inay ciidan shaqeeyaan adinka waxa ay diriiska u wataan oo u labisan yihiin har iyo habeen oo iska dhiino waa daraadiin inay nabadiina Ilaahay ayaa gacay kafaale qaadi kara laakiin ku sokow in Ilaahay macnaha oo ayaga sabab ugu dhigo inay diyaar u noqdaan inay difaacaan koor inta muddooyinka ay soo dhaafnay laamaha amniga qaybahooda kala duwan ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen 4 xaafadood ee magaalada Jowhar kuwaas oo howlgalladooda inta badan guulo ka gaaray. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar.